adduunyadu qiimo badan ma laha waa meel lagu gaboobo adduunku gabowbaa yaalla 4 cudur oo aakhira aan oolinba adduunka yaalla cudurka koowaadi waa gabow adduunka waa lagu gaboobaa ninkii quruxda badnaa ee lixaadka lahaa ee timihiisii gadh iyo madaxba madoobaayeen ee indhihiisu fayda ahaayeen ee u tallaabsanaya la yaabka lahaa mise waa gabowo gadhkii timihii waa caddaadeen indhihii araggii waa soo guray dhegihii waa cuslaadeen hadalka kor igu qaad buu ku leeyahay ninka itaal roonaa oo ka qurux badnaa ninkaas waxaa lagu leeyahay weli lama arag ninkaas ku dhexdhacay aad moodid shay naqadka laga saarayo kale adduunku waa meel lagu gaajoodo gaajaa taal intaa waxaad maqlaysaa waxbaa dhammaaday waxbaa go'ay waxbaa intaa kale waxaysan adduunku waa meel lagu bukoodo oo bugtaa taalla waxaa dhakhaatiirtu dabaqya dhisatay jaamacado looga soo baxay kaadha loo goosanaya farmasiya loo furtay weydinka arkay bugtaa taalla adduunka geeri baa taalla noloshu inaanay rasmi ahayn garo geeri iyo gabow iyo gaajo iyo bugta meeshan taalla 4taa cuduri aakhiro laakiin lagama yaqaano qofka ilaahay jannadiisa u geliyo wadaliilu calaa daalik fii xadiidi saxiixi muslim markuu qofku jannada galo ogeysiis baa la siinayaa inna lakum an tasixuu falaa tasqamuu abadan ahlu janna waxaad leedihiin inaad caafimaad ku noolaataan weligiin xanuunsan maysaan dhakhtar lagama yaqaano lambar la goosto iyo kaadh iyo farmasiye iyo adduunka ugu dambaysa dhakhaatiirta aakhiro shaqa kuma laha adduunka waxay goosanayaan ha goostaan laakiin aakhiro ditoor iyo dhakhtar iyo waxaa lagama yaqaano jannada dhexdeeda inna lakum an tashibuu falaa tahramuu abadan waxaad leedihiin dhallinyarannimo inaad ku noolaataan oo idinaan weligiin gaboobin awowgaagii tobnaad iyo adigu isku fil baa tihiin bal cajaa'ibkaa eeg bal meeshaas eeg awowgaagii tobnaad oo iminka haddii lagu abtirso hebel oo hebel oo hebel oo hebel aad leedahay awowgaagii tobnaad iyo adigu 30 jir baa tihiin isku fil baa tihiin awowgaagii tobnaad meeshan aan lisba soo gaadhaynba inna lakum an tancamuu falaa tab'asuu abadan waxaad leedihiin nimco inaad ku noolaataan weligiin dhibaato arki maysaan adduunyadu mar waa guug mar waa dayr mar waa diraac mar waa jiilaal waa iska arkaysaa intaa oo qofku wadaad maanta wax haysato biri wax ma haysatid reer iyo xaas hadduu jiro biyihii waa madheen baa lagu odhanayaa waa go'an yihiin raashinkii waa dhammaaday saliiddii waa dhammaatay biilkii waa go'ay maa lahaa min nafaadin risiqa jannada yaalla wax dhammaanayaba maaha way ku aftaqaanaa jannadu markaad istidhaahdo war maanta malaha waxaa kugu wacnaa xogaa tufaaxa inaad cunto laan durdurinaysaaba kuu imanaysa waatan waa ku aftaqaanaaba iska hurhurun weeye wixii kale adeegahana ikhyaar baa laguu sameeyey wayatuufu calayhim wildaanun mukhalladuuna idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an mansuura wiilasha meeshaa jooga quruxda haddaad aragto luul saa meesha loogu firdhiyey baad mooddaa baa ilahay leeyahy subxaana aakhiro waa meel aan lagu dhiman geeri ma jirto inna lakum an taxyaw falaa tamuutuu abadan waxaad leedihin inaad noolaataan weligiin ma dhimanaysaan meeshaasaa qofka mu'minka ah ee wax fahmaya halkaasu inuu u shaqaysta la rabaa in qofku fadhiga ka kaco oo habeennadan adduunka aadan ku tiigaalin diintaada gacanta midig aad ku qabsato adduunyadaadana gacanta bidix aad ku qabsato si raganimo leh ilaahay u caabudid adduunyada iyo waxa xumaanta aad iska ilaalisid waxyaabaha macaasida maanta faraha badan ee taalla ee fududaaday jeebka lagu wada sitaayo moobeelladii iyo wax kasta oo waadiga arkayo mid weyn iyo mid dhallinyaro ahba jeegadii baa la wada xiirtay timasaa u wada taagan kaannahaa ru'uusu shayaatiin aad mooddi waxay aan la garanayn baa la wataa ilaahay ogow qofka muslimka ahow mararka qaarkood waa lagu ibtilaynayaa waxyaabihii lagaa xarrimay ee macaasida ahaa ee fitanta ahaa ee xumaa ayaa lagugu soo daynayaa waxaa ilaahay ku eegayaa bal inaad waxan ku daqaqanto oo aad faraha la geshid iyo inaad is-ururiso oo tidhaahdo ilaahay imtixaan buu aniga ila damcay nooc kasta ahow wadaliilu calaa daalik ilaahay qur-aanka wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum u fiirsaad halkaa dadka mu'miniinta ohow ugaadha ha dilina ma ugaadhsan kartaan idinkoo cumro soo xidhay ama xaj soo xidhay ma ugaadhsan kartaan haddaad berriga maraysaan iska ilaaliyaa la yidhi saxaabadii rasuulku way soo baxeen waxaa la soo cumraa loo soo baxay iyagoo waddadii maraya mise deeradii iyo sakaaradii iyo
biciidkii iyo garanuugtii wixii ayda ku jiray ayaa la soo saaray markaasaa awrtoodii iyo fardahoodii bay saa u dhex maraysaa tanaaluhu aydiikum wa rimaaxukum liyaclama allaahu man yakhaafuhu bilghayb ugaadhii lagu rafaadi jiray ninka sidaa yidhaahdee laaca garanuug weynaatay buu soo qabanayaa kay ka yara duugsantayna waranku sidaa u gelin karaa maxaa ilaahay saa u yeelay ilaahay markii laydin yidhaha ugaadh